مسؤولينta shirkadda dalxiiska ee Mansour Sea Tourism ayaa safar dalxiis iyo dalbarasho ah waxay u fidiyeen kooxdii ku guuleysatay tartankii naadiyada heerka koobaad ee ka socday gobolka Togdheer. kooxda hay'adda madaarada oo sanadkii labaad oo xiriir ku guuleysatay tartanka naadiyada heerka koobaad ee gobolka Togdheer. gudoomiyaha kooxda hay'adda madaarada ee iyadu ku guuleysatay tartanka naadiyada heerka koobaad ee gobolka Togdheer, Guuleed Cabdalla, ayaa si weyn ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta Mansour Sea Tourism oo uu sheegay inay ka dhaweeyeen ballanqaad ay hore kooxda ugu fidiyeen. maamulka hoteelka Mansour Hotel oo markii xafladii maalintii dhaweyd jimcihiisii 19 bishii noo ballanqaaday inay nagu casuumaan in aan tourism sameeyno oo kooxdu ay dalxiis sameeyso iyagoo nagu dhiirigelinaya taas aad iyo aad baan maaragtay ugu mahadcelinaynaa. waliba qaybta Burco Mustafa Cabdi Cali oo na soo agaasimay oo saakana soo ambabixiyay oo in dhaweytaalada maaragtay na soo agaasimay oo soo maamulayay insha Allah taala si uu tourism noogu hagaago noogu qurux badnaado. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maaragtay koox ahaaneed ama insha Allah taala waan u mahadcelinaynaa maamulka hoteelka iyo dhammaan mulkiilayaasha hoteelkaba. maanta casuumadii waan haynaa alxamdulillah rabbil caalamiin, ballanqaadkiina wanaga hadeer badii joogna goordhow insha Allah taala baan dalxiiskii iyo tourismkiina sameeynaa. Mustafa Cabdi Cali bin Aadam oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee Mansour Sea Tourism ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay fulinta ballanqaad ay hore kooxda ugu fidiyeen, isagoona sheegay inay halkaas ka sii wadi doonaan dardargelinta iyo dhiirigelinta iyo garab istaagga dhalinyarada dhinaca ciyaaraha. waxaan aad ugu faraxsanahay in kooxdii horyaalka koobka gobolka Togdheer haysatay saareed ahayd ay noqoto kooxdii u horeysay ee gobol aan ahayn ka ciyaarta xeerkii maaragtay wareegii gobolada oo kale. waan ku soo casuunay gobolka Daadmareed gobol waana u suurtagelin cimilada badda awgeed maroodi jeexo kale kooxdii kubadda cagta koolayga qaaday waan ku casuunay. laakiin kooxdan waxa noqonaysa kooxdii ugu horeysay koox ahaan iyagoo ah aan gobol magaca heerka koobaad timaada halkan iyaga laftarkoodii taariikh bay noqotay. taana waxaan u sameynay inaanu dhiirigelino dhalinyartii mujtamaca gobolka Togdheer si ay uga soo kabtaan dhaawicii hore gaaray dibadna midnimadooda ay tustana dadku markay wax qurux badan sameeyaan in cid walba ay ku farxayso martaqaad iyo wax walba loo sameeyo. qaar ka mid ah ciyaaryahanada u ciyaara hay'adda madaarada ee iyagu ku guuleystay tartankani ka socday gobolka Togdheer gaar ahaan garoonka Alamsey ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay safar dalbarasho ah iyo dalxiis ku yimaadaan magaalada xeebada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. maamulayaasha Mansour Sea Tourism oo si fiican dalxiis fiican nagu soo dhaweeyay, waji fiican nagu soo dhaweeyay, iyo bahda Saan TV oo ilaa iyo Burco ilaa iyo halkan na garab taagnaa iyo sidoo kale sawir qaadayaasha. waan dhawahay saaxiib Sakariyo, waan ku dhawahay TV-ga Saan TV. badda ka waran maanta badda wallahi saaxiib aniga afsi badan baa i haysa oo aad iyo aad markii hore haysa, laakiin markan mawjadii ka soo jeesanay ma haysa, laakiin markii hore cabsi aad iyo aad u daran baa haysay. waana markii ugu horeysay taariikhdeeda aan bad galo. Sakariyo Sudeesi, telefishinka Saan, Berbera.